الشيطان الرجيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسيين وحاو كبل أبميا آيات كوبية اللحدنات كان سورة الحجر وحان كسو قد جرني قصدي قوم لوط نبي الله لوط إيا قوم كيسيبا كسو قد جرني قصدودي وحاو رب سبحانه وتعالى إنه صوت المامي إن ربي نبي الله إبراهيم كيري إبراهيم oo ergadii ilaahay uu soo diray malaa'igtii socotada ahayd ee soo martiday nabiyullaahi ibraahim markuu ibraahim weydiiyey xageed u socotaan waxay ku wargeliyeen ilaah baana soo diray wuxuu noo diray dad mujrimiin ah qola dembiga badsatay ayuu ilaahay noo diray inaan soo rogno siday u dhayina waan rogaynaa waxaan ka samatay bixinaynaa oo nabiyullaahi luud iyo ehelkiisa oo aanay ku jirin haweenaydii uu qabay halkaa buu darsigeennii hore ku joogay aayaadka darsigeennan caaw waxa uu dhammaystirayaa qisadaa intii ka hadhay iyadii weliba qur'aanka qisaska habku u soo bandhiga ay tahay hab cajiib badan kolba dhinac baa lagaga imanayaa si aan ugu cibro qaadano aayaadkan waxaa la soo horraysiinayaa qisada intii dambaysay baa la soo horraysiinayaa qisada intii soo horraysayna xagga dambaa la marinaya ilaahay wuxuu tilmaamay nebiyullaahi luud oo malaa'igtii ay wada hadlayaan oo malaa'igtii ay leeyihiin annaga kuwa nagu daa annagaa ku filan haddana ilaahay aayadka wuxuu ku keeni doonaa markii ay u yimaadeen iyo raggii oo iskugu qayshanaya nebiyullaahi luudna aanu weli fahmin inay malaa'ig yihiin marka qisada qaybtii dambaysaa la soo horraysiiyey waana usluubka uu qur'aanku wax u soo cardinayo jawaabtii baa la siiyey say wax u dhaceen baa loo soo dedejiyey qisadiina gadaalanba xagga dambaa laga faahfaahiyey qisadan qowmu luud bal haddaba aynu si guud u tilmaano nebiyullaahi luud malaa'igtii markii ay ibraahim ka tageen ee ibraahim u sheegeen inayna bixinayn luud haweenaydiisa laakiin ehelkiisa kale ay bixinayaan siday u socdeen waxay daf u soo yidhaahdeen nebiyullaahi luud iyagii oo iska dhigay suurad niman dhallinyar ah oo qurux badan oo labis cajiiba xidhan nebiyullaahi luud araggii uu arkayba wuu naxay wuxuu ka naxay wuxuu og yahay qoomkiisu say u dhaqmaan inay yihiin dad edeb daran yacni xun macsida iyo fawaaxishta ku talax tegay ragga wax ka daynayay raggay koraanoy fuulfuulaan waa rag qurux badan oo weliba cid u gurmaraysa aanay jirin oo socoto ah inaanay kuwani bixinayn
oo jidadgooyada iyo socotada un ay ka shaqeeyaan buu garanayay nebiyullaahi luut siduu qur-aanka aan ka fahmayna siyaaqiisana horeba way isku eedeen qoomkiisa oo arrimahan oo kale isku qabsadeen markaasay luudow cid damboonu annagu damacno hana dhex marin bay yidhahdeen luud markuu arkay wuu naxay markii uu naxay haddana waa martidiisii waa inuu ilaaliyo waxa markiiba maqlay qoomkiisii baa maqlay wajaa ahlu lmadiinati yastabshiruun qaybtaa waa soo horraysa iyagiioo farxaya iyagiioo damaashaadaya ayay u yimaadeen nebiyullaahi luut rag baa soo galay qurux badan dhallinyar baa la helay way ku soo gariinayaan shahawaadkooday doonayaan inay ku gutaan xaggan inay ku gutaan meel ilaahay aanu jidayn xaaraam ah markay yimaadeen nebiyullaahi luud wuu is hortaagay wuxuu doonay inuu u caqli celiyo wuxuu uhi war dhegaysta nimankan aanay marti ii yihiin martidayda haygu ceebaynina haydullaynina nin aan martidiisa magan gelin karin hayga dhigina war hay fadeexadaynina ii tiro ii naxariista waa la diiday wuxuu ihi dhegaysta haweenkeenna haddaba haddaad shahwad inaad gudataan aad doonaysaan xaggaa iyo haweenka ula kaca gabdhahayga xaggooda ula kaca ummaddayda xaggeeda dumarkeeda xaggeeda ula kaca maxaad ragga ka doonaysaan waxay idhahdeen luudow waxaad tihiin unaasun yatadaharuun waxaad iska kaaya nadiifinaysaan waxaan doonayna waad garanaysaa ee waa maxay waad iska kaaya dahiraysaayo qof fiican baad iska dhigaysa waad iska kaaya fiicnaysiinaysaa annagu waxaan u soconna waad ogtay raggan baan u soconna markaasaa nebiyullaahi luud uu qaylinayaa wuxuu leeyihi war inkaar qabooyin alaysa minkum rajulun rashiid mid quroo caqli iyo garaadlii miyaanu idinku jirin xataa nin oday ah oo iga kiin qabta oo iga safta miyaanu idinku jirin waxay luudow waxaanad akhriyaysaba adaa sheegaya iskaga bax bay yidhahdeen markay saa ugu jawaabeen ee u taag waayey ee nebiyullaahi luud ay ku soo gariireen ee nebiyullaahi luud uu quus istaagay ee uu calaacalay uu ihi waxaad igu ogaateen inaanan tol adag aanan ku lahayn halkan ila nebi ibraahim baa adeero ahaayo xaggaa buu ka yimid haddaan tol ku leeyay sidan imaydaan gasheen buuri amba low yani aawi ilaa ruknin shadiid haddaan meel culus ku tiirsanay ilahay wuxuu uhi ibraahim luudow meel weyn baad ku tiirsantay ilaahay baad ku tiirsantay subxaanahu wa tacaala markay arrintii jiq ku noqotay ee uu istaagay ayaa malaa'igtiiba hadashay aayaadka qaybta soo horreeya waa ka waxaa lihi luudow annaga iyo kuwan isu kaayadda ha nooga baqin annaga oo maxaad haydeen annagu malaa'ig baabannahay kuwii inay rogaan oy gebagebeeyaan loo soo diray baana annaga iyaga isu kaaya dhaaf kabwa warka iyaga ka baxa adiga waxaa lagaa rabaa saqda dhexe markay tahay reerkaaga guuro geli dheelmiyoo kaxee guuragal ugu dhufo saqda dhexe socodsii reerkaaga habeen madowga guuro geliyoo kaxee markaad weliba kaxaysidna xagga dambe ka soo mar adiguyo kaxee xagga dambe ka wad adigu oo kaxee oo mid idinka idinka midi yaanu xagga dambe soo daymoon si aanu u arag amba aanay cabsi ugu dhixin amba aanu qoomka la rogayo waxa ku dhacaya aanu u arag xagga dambena soo daymeeninee sii jeedo socdaalay qawmu luud waxay weliba luudow islaantaadana ha isku dhibin iyada u taageli maysidee qoomkan bay la midtoo waa la halaagaya iyada nebiyullaahi luud markaasu markay saa yidhaahdeen ayuu yihi oo goormaad rogaysaan ilaan waa bal ka warran qolo nebigii loo soo dirayba intuu khaati ka joogsaday imakaba maa la gebagabeeyey oo leeyahay bal ka warran allahu akbar inkaar soo maaha markaasaa waxaa la yidhi inna mawcidahum subx baa la yidhi ilaahay wuxuu rogi doonaa waagu markuu dilaaco markaasaa nebiyullaahi luud wuxuu leeyahy subaxa ah ma kuwan baad subaxa gaadhsiinaysaan u dheeraysanaya oo imakaba maad u keentiin ilahay waxay malaa'igtiisa ku idhahdeen alaysa subxu biqariib waa inagii soo marnay oo luud maxaa kugu dhacay subaxu sow ka dhow maaha waagoo dilaacun soo maaha maxaa inaga xiga yani nebiyullaahi luud imakaba in la gebagabeeyey doonayay nebiyullaahi luud hadda khalaas farxaan buu noqday hawshiisuu iska galay reerkiisii buu guuro geliyey iyagiina maxaa ku dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iskugu daray cadaabo
وكو dhulkii baa horta la gooyay markaasaa lagu qaysh markaasaa dhagaxna sida roobka lagaga dhigay oo la raawiyay markaasaa dhulkii lagu daboolay ilaahay waxa soo halaagu ku riday ilaahay islaantiisina ku jirta marka ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa buu leeyahay qisadoodu waa tan qala ta'ala rabbu leeyahay falamma markii jaa uu yimid ala luud aalkiisa markay u yimaadeen reer luud markay u yimaadeen almursaluun kuwii la soo diray markay u yimaadeen malaa'igtii falamma markii jaa ay u yimaadeen ala luud aalkiisii almursaluuna rusushii la soo diray qaala waxawli innakum idinku qawmun dad baatiin rag munkaruuna aan la garanayn innakum idinku قوم رجباتين منكرون آن لجرنين إذن ما جرنا أيه صعوتاتين محاتين قالوا وحيدين إسكت إنا بنوب بغديد تنوى شوابتي حق الضنب دجالك يدريتي بكور رئيسي وإنه أركضونا قالوا وحيدين بل إسكت أنك يجا نوك ربح شيناك وحنقولا نمد بما عذابك كانوا أي أهايين فيه استجاب يمترون كوا كمرما أو كشكيا عذاب كأين باوضا إسكدا قالوا واحد هذين بل أجيناك وحن كولن مدلود بما كيبا نقولن مد كانوا أي أهايين فيه استجاب يمترون كوا كشكيا وهي أي كشكيين أو إنه عذاب كسو دقيقة أو إلهي إنه كأرجو صنعة أيان نقولن مد وآتيناك وحن كولن مد لوضو بالحق حق بانكولا نمد رم بانكولا نمد وآتيناك وحنكولا نمد بالحق رم بانكولا نمد وإنا أنغنا لصادقون كورن شيغيانا والنبي لوضو أرقى أحسن مرتديسي وحبه قبن كريواي علي مرارد الله عسن مركز تلين وآتيناك وحنكولا نمد بالحق حق رم بانكولا نمد يقين عذابنا نوضو وإنا أنغو لصادقون كو رون شيغيانو ناي waxa aan leenahay run baan ku sheegaynaa oo waan rogi ee luudo fa asri guura gali saqda dhexe fa asri guura gal u sameeyo saqda dhexe kahe bi ahlika ehelkaaga bi qid'in gobol min al-layl habeenkiya kahe habeenka markuu nus joogo kahe fa asri guura gali bi ahlika ehelkaaga بقدع قبل من الليل هبينك يقور قلي وكعه هبينك نص كم من الليل بيوكعه واتبع راع أدبارهم حقه الذنب حاجة بعضه كسعه واتبع راع أدبارهم حقه الذنب راع وكسعه ولا يلتفت يون الضيمون منكم حالي دينك ودين كم بديهي أحد روحنا يندب صوت ضيمون سيانو أرج هلاك iyo burburka iyo cadaabka dhacaya saanu arag ama saanu wahab saaminba degdega way degdega imaka dad kolba iska irday mootid oo xagga dambe iska eegeegtid saacada ka dhacaysa Soomaa wad hab saamaysaade waxa leeyahay waxba ay nagu eegeegina talaabso Soomaa marka in degdeg loo jeedaa suuragala waxa leeyahay degdeg oo xaggan iyo xaggan u jeedsanina mayna waxa leeyahay cadaabka ba eegina wala yaltafit yusan daymun منكم حالي ذيك ودين كمدي أحد روحنا يانو حق ضمب الضيمون وامضوا صعدا حيث ماشي تؤمرون لإذن فرج إلى هالكو إذن فرج وحقا إيا الشام حقا إيا أردنا أقع وامضوا صعدا حيث ماشي تؤمرون لإذن فرج إلى هاي أقع وذيري والصعدا عبد الله بن عباس عوري شام أقع حقا إيا الشام أقع وقضينا ربحي وقضينا وحان ورني وحان وحيوني إليه إسقى لوط ذلك كاسئ الأمر أرنك أبان وحيوني وقضينا وحان وحيوني أن أشيغني إليه لوط ذلك كاسئ الأمر أرنك أبان أشيغني أوامعي وحوي أن دابر عربتا هؤلاء كواني مقدوع مثل قوين وي مصبحين مركي وابريستان
warkii loo sheegay waxaan u waranay ee markii hore waa la duuduubay markii dambena waa la cadeeyay waqadaynaa waxaan u waxyoonoon u waranay ilayhi luud dalika kaasi al-amr arrinkaan u waranay oo in la halaagi in subaxa la rogi in la gabagabayna oo muxuu yahay kaas waa ka bedel annadaabira waxaan u waranay annadaabira ciribta haaulaa'i kuwaas maqduucun mid la goyn inay tahay musbixiina markay waa baristaan waagu markuu dilaaco ayaa ciribta loo goyn doonaa yani ciribta daabirku waa maxay yani xabad laga reebi maayo waa la gebagabayn buu rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu intaa warramay waa kan qisada qaybtii hore rabbi tilmaamaya rabbi wuxuu leeyahy wajaa'a waxaa yimid waa nabiyullaahi luud ee qisada qaybtan baa horraysay wajaa'a waxaa yimid markii yani eeg nabiyullaahi luud martidii baa u timid wuxuu uhi innakum qawmun munkaruun ragaan la garanayn baa tiri maxaad ahaydeen markaasa intayna isku warraminba wajaa'a waxaa yimid ahlulmadiinati magaaladan qowmuluud dadkii degganaa baa yimid yastabshiruun iyagoo bishaaraysanaya iyagoo faraxsan maanta rag baan hellay xaajadeenni meelaan ku gudannaan hellay yani waa akhlaaq xumo waa dhaqan xumo waa ummad fasaade wey wajaa'a waxaa yimid ahlulmadiina magaalada kuwii ehelka u ahaa yastabshiruun iyagii oo bishaaraysanayay yimaadeen qaala waxa uu war bal joogsada inna haaulaa'i kuwani dayfii martidaydii weeye ee falaa taftaxuuni haygu ceebaynina hay fadeexadaynina hay qaawinina waa ragga iidaaya qaala wuxuu uhi inna haaulaa'i kuwani dayfii martidaydii weeye anay marti iiyin aniga igu dhowra dartay u dhaafa oo falaa taftaxuunii hay fadeexadaynina war hay ceebaynina martida iidaaya nin martidiisii waxba u qaban kari waayo oo ehelkiisii ka celin kari waayey hayga dhigina wattaqu allah ilaahay ka baqa oo walaa tukhsuunii hay hoojinina ha idullaynina ha iqaawinina war xishooda buuli wattaqu allah ilaahay ka baqa oo nebigiidhii baan ahay oo rasuulkii laydiin soo diray baan ahay walaa tukhsuunii ha i hoojinina qaaluu waxay idhahdeen luudow waa maxay calaacalkani waa maxay waxaanaad ku hadlaysa waa maxay ragganaad naga dhex maraysaa qaaluu waxay idhahdeen awalam nanhaka oo horta miyaanaan kuu diidin canilcaalamiina uunka iyo dadka inaadna kala dhex martid hore miyaanaan kaaga digin miyaanaan hore kuu odhan annagiiyo dadka isku kahaya daaya qaaluu waxay idhahdeen awalam nanhaka miyaanaan kaa reebin canilcaalamiina uunka iyo dadka inaadna kala dhex martid ood annaga rag naga celisid miyaanaan hore kuugu diidin qaala wuxuu idhi war xishooda haddaad doonaysaa inaad xaajadiinna gudataan haaulaa'i kuwani banaatii gabdhahaygii weeye in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa wax samaynaya oo xaaje inay gutaan doonaya xaggan ula kaca xagga dumarka ula kaca markaa gabdhuhu waa sidee nebi walba ummaddiisa dumarka joogoo dhani waa gabdhihiisii weeye waa hablihiisii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa maxaa la odhanayay ummahaatulmu'miniin soo maha yacni hooyooyinkii mu'miniinta nebiguna ummadda aabbuu u yahay iyaguna waa hooyooyinkii ummadda soo maha nebiyullaahi luud markuu gabdhaha leeyahay maha hablihiisii uun waa dhammaan gabdhihii ummadda oo dhan war waxaad guursataan ood xaajada ula kacdaan oo halkuu ilaahay idiin jideeyey ah waa haweenkeenna maaha raggan buu leeyahy wuxuu leeyahay qaala wuxuu uhi haaulaa'i kuwani banaatii gabdhahaygii weeye waa haweenkii ummaddayda weeye iyaga guursada oo xaggooda u kaca in kuntum haddaad tihiin faaciliin kuwa inay wax sameeyaan doonayo xaajo gutaan xaggaa u kaca waxay idhahdeen dhegayso waxaas waxaan u soconna maaha lacamruka ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey innahum aayaddani waxaa laha jumla ictiraadiya af carabi waxa laha jumla ictiraadiya naxwaha marka carabiga lagu jiro waa hadal aan hadalka ka mid ahayne lagu adkaynayo soo dhex galay masalan san u hadlayey unbuu nin meelaha istaago fadhiisaan fadhiiso fadhiisadaasi xadiiskii aan waday miyay ku dhex jirta hadhow marka la micnayn miyaa lagu dari
mise xadiiska cilaaqa la leedahayo yani xadiiska bal si macaan buu inoogu soo fadhiiso soo ma marka halka nebiga la qiimihiisa iyo karaamadiisa ayuu ilaahay sugaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahay lacamruka noloshaadan ku dhaartay nebi maxamedow innahum ayagu kuwaasi la fii sakratihim sakhradoodii iyo wareerkoodii iyo maqnaanshahooda dhexdiisa ayay yacmahuun kuwa ku wareegeysanaya nebi allow noloshaadan ku dhaartay qiimahaad igu leedaan ku dhaartay niman wareersan bay ahaayeen buli rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa nebiga u adkayn wuxuu nimankaasi niman wareersan bay ahaayeen wareega caddaysanaya isla maqan bay ahaayeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay naftiisa axadka ku dhaartay weeye waxay ku tusaysaa sharafta iyo qiimiga iyo halkuu jooga nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa ku dhaaranaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa cabdillaahi ibnu cabbaas waxa uu leeyahay cabdillaahi ibnu cabbaas markuu warramayey wuxuu yidhi maa khalaqa allahu wamaa dara'a wamaa bara'a nafsan ilaahay ma abuurin oo ma unkamin oo ma jirsii naf akram cala allaahi min muxammadin sala allahu calayh wasalam cid ilaahay agtiisa nebi maxamed ka qiimi badan ilaahayba ma abuurin buuri wamaa samictu allaha aqsama bixayaati yacni axadin kayra mana maqal ilaahay ciduu abuuray cidaan nebi maxamed ahayn yani ilaahay subxaanahu wa tacaala cidaan nebi maxamed ahayn oo ku dhaaranayana ma maqal yani ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga ayuu ku dhaaranaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahy lacam axaduu ku dhaaranayo nebi maxamed ahaynna ma arag ilahay wuxuu leeyahy waa loo adkaynaya lacamruka noloshaadaan ku dhaartay nebi maxamed oo cumrigaaga wey lacamruka noloshaadaan ku dhaartay cumrigaage innahum ayagu nimankaa qowmuluud la fii sakratihim sikhradooda dhexdeeda wareerkooda dhexdiisa yacmahuun kuwa ku wareegeysanaya buli rabbi subxaanahu wa tacaala yacmahuun kuwa ku wareegeysanaya yacni hor iyo dababa kuwa ka jeeday ahayn niman sikhraansan oo maqan oo sinad iyo fawaaxishtaa ku maqan bay ahaayeen buli rabbi subxaanahu wa tacaala nimanaan waxbaba arkayn bay ahaayeen markaasaa rabbi wuxuu leeyay faakhadadtum waxaa qabatay nimankii maqnaa ee miyirka lahaa faakhadadtum waxaa qabatay assayxatu qaylo ilaahay wuu ku qayliyey mushriqiin iyagoo cadceeddu u soo baxayso xaalayin mushriqiin kuwa cadceeddu u soo baxayso ee shuruuq waa xilliga cadceeddu wax soo baxaysa wey fajacalnaa waxaan yeelnay caaliyahaa dhulkooda xaggeedii sare saafilahaa teedii hoosaan ka dhignay intaan goyno dhulkii oon kor u qaadnay ayaanu xaggii sare rognay buu le rabbi subxaanahu wa tacaala allahu akbar wa amdarna waxaan ku raawinay waxaan sida roobka kaga dhignay calayhim dushooda xijaaratan dhagax min sijiil dhooba iyo yacni ciid laysku dhafay dhooba iyo dhagax laysku dhafaya sijiilka waxaa lahahdaa dhoobada iyo dhagaxa laysku daree laysku adkeeyo shub wey shub yacni min sijiil yacni dhagax shub ah oo dhooba iyo dhagax laysdhex geliyey oo laysku shubay ah ayaan ku shubnay buli rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa layskugu daray saddex arrin baa layskugu daray horta kor baa loo qaaday dhulkii baa lala gooyey markaasaa lagu qayliyey markaasaa dhulkii lagu daboolay markaasaa dhagaxna weliba loogu daray waa dhulkii oo lagu daboolay oo dhulka hoostiisa la geliyey waa dhagax yacni waxa weeye iimaanka lagaga qaaday sida roobka lagaga dhigay waa qayle la qarriciyey intaayo cadaab ilaahi subxaanahu wa tacala isku daray rabbi wuxuu leey faakhadadtum waxaa qabatay assayxatu qaylo mushriqiina iyagii oo cadceeddu u soo baxayso fajacalnaa waxaan yeelnay caaliyahaa teedii sarraysay dhulka saafilahaa tii hoosaysaan ka dhignay hoostaan marinay halkay ku caasiyayeen ilaahay iyo dembigii ay samaynayeenba hoos baan marinay wa amdarnaa waxaan ku raawinay waxaan ku shiidnay calayhim dushooda xijaaratan dhagax wa amdarnaa waxaan ku roobaynay sida roobka inagu waynu isticmaalaa soo maha hadduu nin dhagax ooda kaaga qaado xataa dhagax buu sida roobkaygaga dhigay soo maha markaa rabbi wuxuu leeyay wa amdarnaa waxaan ku dhagaxyeynay oon sida roobka kaga dhignay calayhim dushooda xijaaratan dhagaxa dhagaxdaasoo min sijiil dhooba iyo yacni dhagax laysku dhafaya yacni dhooba adag ah ayaan la dhacnay buli rabbi subxaanahu wa tacaala
إن في ذلك أرنتاس لآيات وحي علامة أطاي وحي عقل علين أطاي وحي عبرة أطاي للمتوسمين كوا وحفير فير سنة يبلي رب سبحانه وتعالى كوا وحسنتنايا كوا وحعلامدينايا كوا وحوستك حريقيا أيام كلمة كلمة واسمي واحد هذا سمد على سمد نيف كوالله سمتا سما وأصير لوجر تسمى مركا إلهي وحليه للمتوسمين كوا وحسنتنايا نكان نيف كوا سمتا يسوع وحيسي وجر تسمى أم بعلامات دوم السمينية waxay calaamad u tahay aqal celin kuwa wax suntanaya inay waxani wuxoodii inuu yahay inay gartaan doonaya hubsanayo kuwa wax calaamadaysanaya kuwa waxaanu ka dhignay markaasi wasmiga waxa kale oo leeyahay hoosta marka wax laga xariiqo inagu inaan Soomaa waxaan ilaadaa kuwa wax xariiqanaya wax calaamadsanaya oo waasidi waxa tirada halkaasi muhiim si faa'iidada leedahay xariiq baa hoosta la mariyaa Soomaa هذا الكدوني سيد موجسيد قيميسة صولين يرهوست الله مريو لين يربلا مريو هالك سوا ميراه دوني سيد قيمة ذات سياح افتيميسود شيء ولكن حقول إنه أي تيتر كان بحوان كيو وحلم ذايو مالها مرتدى أيو هالكارين فرمضة يسوق جينيو لين بان هوست كتشحنا سوما وان سنتين سوما وان علامدين الناس وعادات ما كان رجع وحسنتنا هوست وحكا حريقنا كان كود هذا أي علامات طيب لرب سبحانه وتعالى فقال رب عليه إن في ذلك أرنتاس لآيات وحي علامة أطاي إله الله قرته للمتوسمين كو وحسن تنية علامة يسنى يبلي رب سبحانه وتعالى وإنها دقمدا لود وإنها تولدا قوم لود لبسبيل وضع عبي مقيم من نكتاي وإنها إيادو لبسبيل المقيم يعني أف عربية هي أف صومالية بركة الأسكول لقبيني هذا يتشدي نقول لقبا هنا يعني واحد دورنا إنه كلمة دي بحرينه سجود وأنا معنين لين أو دقيقة سجود بنا يده وشيء لكن واحد دورنا إنه سلك هنا أف عربية هي صومالية اللقبة دي صومالية بركة واحد على شارية مجرور أف عربية شارية مجرور كوا علاء في لام من كوا حروف الجرك شارية مجرور هداد أركتين مجرور يعني شارية مجرور والله بضع يستبصد وحرف كي يكي كل معنى متعلق بيلين وحبا يكون حريين إلا اللي هلا وحا كحريين معنوه اسمه قبصانه مركا إما كان مقيم تصور رئيس يقول بالسبيل لام كان إيه السبيل كان هو شارية مجرور بالسبيل هو شارية مجرور اللام كان إيه بالسبيل كاوي شارية مجرور كان هدبا متعلق خيس ومحيوى مقيم كدبا مركا دا دوني سنة معنوه سيارة معانا وشلع سنة كومرو oo dul qadid muqiimka soo horeysiis ka waxa leenahay wa innaha qaryadani muqiimun mid nagi weeye labisabilin jid cad bay ku nagtay labisabil waday ku nagtay wadada labisabilin wadada ayay ku nagtay wadada la marayo ee socotada ayay taala halka bay ku sugantay waxa jira magaalooyin wadadu ay marto iyo magaalooyin wadada looga yar leexda Soomaa tani waaba wadadii buulay Rabbi subhanahu wa ta'ala jidka la maro ee marka Shaam loo sii socdo Quraysh ay marto quraanka waxa lagu soo maray gelin hore hadiye habeenba waa dul martaan markay sii socotaynayaanba wadadii ay marayeen way waynaha qaryadaasi la bisabilin wado ay ku sugan tahay muqiimin sugan yaani oo nag buulay Rabbi subhanahu wa ta'ala wado ay tahay muqiim mid ku nagi waa mid la garnay inna fi dhalika arintaas لآية علامات أي أطاي للمؤمنين كوا مؤمنين تابوا لرب سبحانه وتعالى علامات أي وحكو قرطان أي مؤمنين تأوت إلهي محوت المامي كون إلهي نروقي ما كان ساب مفسرين توحيد هذا دقمداس إلهي نروقي شدكي أي سيمرين وي ما كان ساب وحويان أردن بيكوتها الله وابو حيرير يعني وحيان والله يرو intay quruntai qarmuun way laagaro qarmuun ba ka soo harayba dhulkiiba markii la rogay laagaro qarmuun ba wixii ba isku degmadii ba ay noqotay waa jidkii ay sii marayeen ay sii hayeen marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ibro waxa idin ku filan kuwaas waxay sameeyeen kuwan
faaxishaa laga kari waayo faaxishadana maa sabaqakum biha axadu min alcaalamiin bibilaayn cid uga horraysay ma jirta iyagaa bilaabay faaxishaday samaynaya waa maxay waa iyag qoomuluud baa lagu magacaabo waxa la liwaad baa liwaad yacni liwaad waa maxay waa qoomuluud ficilkii ay samaynayeen baa lidhi waa ragga wax laga dayo imanka bal u fiirso ilaahay kuwaa wuxuu ku rogay waa taasoo maaha innagana imanka qoomuluudnimadii baa la raadinayaa badde calan baa loo qaatiyo taablooyo waa dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo lama taaban kariya baa la idhaayo waaba caan waa lagu faaraya waa la caddaysanaya markaasaa cirka markaasaa nin ka hadli karaa ma jiro kii ka hadlaana isagaa dembiile ah maxkamadaaba loo samaysay soo maha waa maxay waa kuwan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuwa abaalkoodii ka dhigay inuu dhulkuba hayn waayo intuu dhulkii qaaday uu ka sifeeyuu daboolay nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam kuwaa sida loola dhaqmo inoo sheegay adoo amba united nationkiiyo jimciyadda qurbaanka ka dhaxaysa ku xidhnow amba balaayo kale iyo xorriyado kala doondoono nebiguna sidii loola dhaqmayey buu sheegay wuxuu idhi haddaad aragtaanba uqtulu alfaacila waalmafcuulu bihi ka wax samaynaya iyo ka lagu samaynayo labadaba dila buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh malaaya u fiirsahay daaba laguma odhan xuquuq si iyo xuquuqu ilaali iyo midna laguma odhan waxaa la idhi dila ka wax samaynaya iyo ka lagu samaynayo labadaba dila buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh sharcigeena halkaa u maraya markaasaa culimadu waxay isweydiiyeen sidee loo dili rag waxay idhahdeen xabadun dhagha lagaga siiyo rag baa idhi may qoom waa fuqahadu say u badantayna wey sidee qoomuluud loo galay nimanka inta la qaado oo meel la taago dhagaxun gawdaha lagaga saaro oo dee xijaaradii la dhacayay soo maaha gawdaha lagaga saaro baa la leeyahy oo inta buur dheer la joojiyo ha laga soo tuuro waa faje yacni meel saro dhulka hoose ha lagu tuuro dhagaxna ha lagu aaso gawduna lagaga saaro xataa dilkeedii baa dil fool xuna si ay edabsi u noqotay innagana maanta waxay noqotay yacni wax iska dee yacni way nagu badatayba de waa faaxishay nagu batay markaasaa dadku waan iska agmaraynaa haddaba sharciguna halkaa buu jooga markaa sharcigana cidda rumaysa mu'minka u ah bal hala doondoonade ilaahi subxaana wa tacaala markuu intaa ka warramay wuxuu uhi wain kaana asxaabu layka waxaa lagu xigsiiyey qoladii la odhan jiray qawmu shucayb qawmu shucayb laba kelmadoodun baa laga sheegay iyaga meelo kalea lagu faahfaahiyey lakin halka waa lasoo duuduubay ilaan masaaricu duqaadun baa imika laga warramaya waxay ku gebagabowdeen kuwani faaxishaydana ilaahay wuu rogay kuwana ilaahay wuu rogay balo fiirso asxaabu layka waxaa loo yidhi kaymo jiqa bay deganeen kaymo dhul geedaha iyo tigaadda iyo barwaaqaa bay deganeen aykada waxaa la dhahdaa kaynta amba hawdka amba dhulka geeduhu madaxa isla wada galaan inagu hawd iyo kayn iyo jiq iyo waxa baa nana soo maaha dhul jiqa buu ilaahay dejiyey nimankan dhulkii ay deganaayeen ayay dekibreen maxay sameeyeen ilaahay bay u shariig yeeleen maxay sameeyeen waxay samaynayeen dadkay dhacayeen maxay sameeyeen miisaanka uunbaa lagu diro markay wax miisayaan uunbay dadka miisaanka ku dhacaan rubuc iyo kiilo iyo nusku waxuunbuu ka jarayaa un nebigii loo soo diray war xishooda oo ilaahayna ha u shariig yeelina dadka dhacaysaan iyo jidadgooyada iyo qaadicu dariiqnimadana iska daaya jidadgooyada xariifinaya jidadgooyadana iska daaya miisaankana ha dhimina waa miisaankan dukaamada yaalla miisaankood dhinta unba dhag baa lagu rogay isagana ogow dadka haddaad waxooda iska siin weyda isagoo dhammaystiran oo aad amba tayada unaad ka dhintid amba wixiiba aad naaqustid wasni ahaan kaama hadhayso meelaha baa la wada tego waxooda caamaysaa loo keenaya wada asal la leeyahay soo maa waa sida qoladana sidanun baa lagu rogay intanun bay ku rogmadeen iyaguna markaasaa ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala siduu u galay iyagana cadaab qura maa cadaabbaa la yskugu dulgeeyey iyagana oo waa maxay waa xumida ay leeyihin awgeed horta kow dhulkiibaa abaar laga dhigay abaar kulul markay sakaraadkii qabeen waxay cunaan iyo waxay cabbaan waayeen ee lagu kuleeliyey dhulkii ayuunbu ilaahay daruur weyn unbuu cirka keenay cadaabu yowma dulla halkii unbay siaan hadhsado ay wada hoos yimaadeen markay hoos yimaadeen inta dhulkii lala gariiriyey oo dhulkii hayn waayey ayuunbaa halkiina cadaab lagaga furay marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy wain kaana wa inuu arrinku wuxuu yihi
wain kaana wainhu arrinku wuxuu yahay war wuxuu yahay kaana waxay aadeen asxaabu layka kaynta kuwii u saaxiibka ahaa qowmu shucayb la daalimiin kuwa daalimiinay ahaayeen buli rabbi subxaanahu wa tacaala markay daalimiin noqdeenna faintaqamnaa waan ka aargoosanay minhum ayaga waan ka aargoosanay buli rabbi subxaanahu wa tacaala wainahumaa labadoodu kuwan iyo kuwii hore waa jaar wainahumaa labadoodu qowmu luud iyo qowmu shucayb la biimaamin waddo mubiinin cad bay degan yihin buli rabbi subxaanahu wa tacaala waddo cadood martaan ayay degan yihin labadii baa la isku qabtay rabbi wuxuu leeyahy faintaqamnaa waan ka aargoosanay minhum ayagana wainahumaa labadoodaas waa qowmu luud iyo qowmu shucayb la biimaamin waddo jid mubiinin cad oo cid walba ay marto oo meel la maro ah ayay ku yaallaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala ee wax ku qaata markaasaa waxaa isweydiin leh ilahay markuu intaa tilmaamayo innagana uu inala hadlo wuxuu yidhi wamaa hiya min aaalimiina bibaciid markii qowmuluud laga warramay ilahay wuxuu ihi kuwa daalimiinta sida kuwaa loo galay hadda kama dheera buli rabbi subxaanahu wa tacaala adna haddaad macaasida iyo fawaaxishta ka hadhi weydo kuwaa jidkoodii ma dheera buli rabbi subxaanahu wa tacaala jidkoodii ma dheera ilahay markuu intaa ka tilmaamay weli waxaan ku jirnaa daalimiintii qolo kale haddana qisadoodii si kooban laynoogu tilmaamaya waa reer samuud reer samuud niman cajiibay ahayn niman dhib badan bay ahayn oo inkaaran waa nimanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diray nebiyullaahi saalix nebiyullaahi saalix mucjisay weydiiseen mucjiso maaha mucjizaad baa la siiyey mucjisaadkii la siiyey waxba ku qaadan waayen mid bay dooneen mucjisooyin baa la siiyey oo waa maxay waxay yidhaahdeen luuin saalixow inaan ku rumayno lama arko intanba shaam iyo waxa intaaba jidkaa la maray degan yihin waa isku waddo oo imaka waa tabuuk agteeda halkan boqortooyada sacuudiga shaam marka lagu sii socdon weeyaan qoladanna waa waddo midow jid midow isku wada dhowa xaggaa shaam loo sii kacayo markaasaa ilaahi subxaana wa taala nimankii quraysh rixlata shitaa'i wasayf marna yeman bay u safrayeen marna shaam marka loo safrayo intaaba waa mari la wada marayo o la isku sii marayey wey markaasaa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leey nimankan mucjisooyin baa la siiyey kow waxay dhahan saalixow haddaad doonaysa inaan ku rumayno ilaahay hal hana siiyo oo halku hasha ka keenaya meel mustaxiila yacni inay daaliyaan bay dooneen dhagax sisib ah oo sallax ah waxaa jira dhagax marka madarqada lagu dhufto meel ragga de wax dhisaa garanaye dhagax ila meelu ka jaba iyo mid malaasan oon la kala jebin karayn baa jira dhagax sisib ah oo xataa meel il yarna aan lahayn oo madaraqii amba dubbe lagaga dhufto ayay yidhahdeen kaa ilaahay hala ka soo dhex saaro mucjisadii koowaad hashii baa laga soo saaray halka mucjiso labaad baa loogu daro hashii waxay noqotay biyahay haystaan oo dhanba maalin quray fuuqsanaysaa waa mucjiso labaad markaasaa hashii wixiiba way fuuqsanaysaa haddana mucjiso kalaa dheeroo hashii markay dooneen inay ay boqnagooyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana waa maxay wuu ku rogay iyaga dhammaantood bal hashaa bal u fiirso mucjisooyinka isdaba socdaa waa hal hashii dhagax bay ka soo baxday haddana waxa weeye biyo waxay haysteen oo dhan bay dhammaysanaysaa waa hashaa dhammaantood la leeyahy war ha taabanina haddaad taabataanna waa laydin dhammayn waa loo taag waayo mid goran oo goosheeya oo dhib badan oo qadaar ibnu saalif ay mufasiriintu ku tilmaamaan facaqara hashii buu boqnagooyey markaasaa weliba ilaahay wuxuu tilmaamay laba aayadoodba fatacaada idin bacasa fatacaada seeftii buu isa siiyey isagunbaa istireeb oo iska qaatay idin bacasa isagaa isa soo bixiyey cidimay soo saarin soo ma jira mid lahayn kari waayo marka fidno kastaba mid iska diyaaro oo aniga igu daaya aniga adun haya midun baaba iska yimid buu ilaahay subxaana wa tacala leeyay hashii buu boqnagooyey markuu boqnagooyena ilaahayna subxana wa taala mucjiso kale u keeno waxaa la yidhi kow hashii sow may dhagax kamay soo bixin sow haddana biyo o dhanba ma dhammaynayso haddana 3 maalmoodun baad noolaanaysaan baa la yidhi markii ay direen waa aayad kale oo mucjiso kale 3 maalmood waliba maalinba weji baad la soo toosaysaan isku midab ma noqonaysaan bal ninka la yidhi noloshaadiiba 3 baa ka hadha halku fadhi weliba astaantii loo sheegayna kow dhadaa la hayo calaamad cad labaadhe 3 gebagabuun buu sugaya soo maa cadaabba tana aabade moraal dilaac adigoo lagu yihi caawaad dhiman
markaad dhimatidna horta waxaabaad arki haddana kaabaad arki haddana kii koowaad baad aragtay kii labaad baad aragtay muran miyay yeelanaysaa marka dambe hadda khalaas waad sii dhimanaysa waa cadaab kale soo maaha ilaahay saa buu ku sameeyey kuwana wuu rogay markaasaa iyagina waa lagu qayliyey markaasay waxay ahayd niman farsamo yaqaanoo buuraha ay aqallada ka qodan jireen markaasay idhaahdeen buurahan baan ka geli doonaa ilaahay wuuba ku qayliyeyba dee buurtuna qaylada way sii dallaacaysaa un codka haddii masalan gidaarkan laga dhex qayliyo afarta gidaarba codku isku soo celinaya soo maha dhawaqa uu sii dallacayo iyagu waxay istaayeen reer caad wixii lagu rogay dabayl bay ahaayeen oo dee dabayshu cidlay ka heshay idinku buurahan boqota oo buur miyay dabayli kare tii caadun bay sugayeen len waa caadkii labaada in lagu rogo ilahay dhinac kalun buu kaga yimid oo iyaga qayla loogu bedelayba marka ilahi subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy walaqad waxaa dhaba kadaba inay beeniyeen asxaabuulxijri dixda kuwii u saaxiibkaa xijrigu waa dixdii ay deganaayeen walaqad waxaa dhaba kadaba inay beeniyeen asxaabuulxijri togga amba dixda kuwii deganaa almursaliina rusushii bay beeniyeen ilahay waa kila wathamuuda jaabu sakra bilwaad soo ilahay ma odhan wathamuuda aladiina jaabu sakra bilwaad eg dix bay dhagaxa la imanayeen markaa raggana dix bay deganaayeen markaa rabbi wuxuu leey walaqad waxaa dhaba kadaba inay beeniyeen asxaabu ulxijri kuwii dixda amba togga u saaxiibka ahaa almursaliina rusushii bay beeniyeen wa aataynaahum waxaan siinay aayaatina aayaadkayagii baan siinay buli rabbi subxaana wa tacaala mucjisooyinkayagii baan u keennay buli rabbi subxaana wa tacaala fa kaanuu waxay ahaadeen canhaa mucjisooyinka mucridiina kuwa ka jeedsanaya mucridiin kuwa ka jeedsanaya wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwii qora min aljibaali buuraha waxay ka qoranayeen buyuutan aqallo aaminiina iyagiioo aamina oo wax walba ka magan gashanoo hooy ay u tahay wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwii qora min aljibaali buuraha waxay ka qoranayeen buyuutan aqallay ka qoranayeen aaminiina iyagiioo aamina buli rabbi subxaanahu wa tacaala oo wax kasta oo dhib ah ka aamina buli rabbi subxaanahu wa tacaala fa akhadadtum waxaa qabatay markay kibreen alsayxatu qaylo musbixiina iyagoo waa bariisanaya fa akhadadtum waxaa qabatay alsayxatu dhawaq iyo qaylo musbixiina iyagoo waa bariisanayay qabatoo ilaahay dhaguu qarxiyey hadduu makarafoonku wey yidhahda dhagahaad qabanaysa ma xamilaysid ila waad qaracmee ilaahay intuu ku qayliyey bay qaracmeen fama aqnaa ma tarin canhum ayaga maakii kaanuna yagsibuuna kuwa shaqaysta waxba umay qaban fama aqnaa waxba uma tarin canhum ayaga maakii kaanuna yagsibuuna kuwa shaqaysta aqalladii ay qorayeen iyo buurihii ay aqallada ka dhigteen iyo qalcadihii ay samaysteen waxba uma tarin buli rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu gebagabeeyey oo wuu rogay markaa rabbi wuxuu leeyahy nebi allow kuwanna hadday kugu edab daraadaan oy macaasida badsadaan oo loo taag waayo waddadii kuwaa hore la mariyey uunbaa la marinu innagana waxaa layna leeyahy factabiruu ya ulil absaar waar wax ku qaata kuwa hore buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay aynagu anfaco wabillahi towfiiq wallah aclam sawa ilayhi maxshar